waxaan maanta soo dhaweynay madaxweynaha dowladda Jubbaland madaxweyne Axmed Madoobe waxaan ku faraxsanahay in uu maanta uu nagala soo qayb galay xafladda caleemasaarka ee berri dhici doonto waxaan uga mahadcelinayaa isaga iyo wafdigii ballaarnaa ee la socday sida ay noo soo sharfeen waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay idmo muddada ay nala joogaan in ay nala wadaagi doonaan farxaddaas ee dadka reer Puntland ay ugu dabaaldegayaan doorashadii ka dhacday 8 bishan wixii waroo dambe dib baan u dhiganaynaa hadalkeenu wuxuu ku koobnaa oo soo dhaweyn iyo marxabaysiin aan ku soo dhaweynayno magaalada Garowe caasimadda dowladda Puntland waddan madaxweyne soo dhaweey aad waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweynaha la doortay madaxweynaha dhammaan mas'uuliyiinta shacabka reer Puntland gaar ahaan Garowe soo dhaweynta qadarinta iyo xushmada mudan ay nagu soo dhaweeyeen maanta magaalada Garowe iyadoo aan u nimid xafladda caleemasaar galbinta la odhan karo madaxweynaha cusub ee la doortay aan odhan karana Puntland waa meel mudan in wax badan lagaga daydo marka waxyaalaha lagaga dayanaya waxaa ka mid ah sida waxaanu sida fiican ay u dhacaan iyo sida kala wareegga iyo dhaqanka ka jira aad baan ugu faraxsanahay degdeg ma qabno insha allah wixii waree kale iyo dib baan u hadli doonaa madaxweyne waan kaaga mahadcelinayaa soo dhaweynta adiga madaxweynaha waan idinku hambalyaynayaa in shacabka reer Puntland ay u arkeen inaad tihiin dadkii xaaladda lagu jira ka bixin marka waxaan leeyahay guul baan idiin rajaynaya insha allah saasaan ku salaamu calaykum